madaxweynaha la doortay ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhashay taariikhdu markii ahayd 1948 waxaana ku dhashay galbeedka magaalada Hargeysa. xilligii barbaarintiisii waxbarashada waxa uu soo wareegay magaalada Hargeysa oo ka bilaabay dugsigii Sheekh Baraawe isagoo waxbarashadiisa hoose dhexna ka bilaabay dugsiga hoose dhexe ee Biyo Dhacay taariikhdu markii ahayd 1959 isagoo waxbarashadiisii kalena ku soo qaatay Camuud. sidoo kale madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 1970 waxaa ka mid noqday ardaydii loo qaatay in loo tababaro carbiska saraakiisha oo ku soo qaatay wadanka Ruushka akademiyadii barashada cilmiga duulimaadka diyaaradaha. sunnadkiisina Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland waxaa ka mid noqday ciidamadii cirka ee Soomaaliya kuwoodii ugu cadcada xagga ciidamada militariga cirka waqtigii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markalena wuxuu aqoontiisa dhinaca ciidanka cirka ku soo qaatay wadanka Mareykanka kuliyadii Virginia Military Institute VMI koras kooban sanad iyo baraha. gabagabadiina madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waa madaxweyne leh 2 xaas 7 caruur 3 wiil iyo 4 hablood. Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto warbaahinta STN Hargeysa.